wasiirka amniga iyo saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ka hadlay dilal qorsheysan oo siyaabo kala duwan maalmihii ugu dambeeyay uga dhacay magaalada Muqdisho. Aways Maxamuud Jilco wariyaha RTN ayaa warkan Muqdisho inooga soo diray. ajira madbaxda kale hadda aan daba joogna hadii Ilaahay tanna waa soo qaban waa kan soo bandhigay. Booliska Soomaaliya ayaa xarunta dugsiga tababarka ciidanka booliska ee Generalka ay ku soo bandhigay 3 qof oo lagu eedeeyay inay ka mid ahaayeen xarakada Al-Shabaab. dhalinyaradan waxa kale oo lagu eedeeyay inay lahaayeen madbacad lagu daabaco warqadaha digniinada ah ee inta badan lagu daadiyo xaafadaha Muqdisho. dugsiga tababarka ciidanka booliska ee Generalka waxa kale oo lagu soo bandhigay warqado ay daabaceen iyo mashiinada ay ku shaqeynayeen. kusimaha taliyaha ciidanka booliska ee dawladda Soomaaliya ahna taliyaha ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed General Mukhtar Xuseen Afrax ayaa saxaafadda u sheegay in dhalinyaradan lagu soo qabtay howlgalo ay ciidanka booliisku ay ka sameeyeen degmooyinka Wadajir iyo Dharkeenley. waxaa dhacay dokumenti been abuur ah madbacado sameeyo oo argixisada isticmaalaysay ay argixisada isticmaashay ciidanka booliiska Soomaaliyeed hoggaanka baarista dambiyada iyo qaybta booliiska galbeed waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa hoggaanka baarista dambiyada iyo qaybta booliiska galbeed talaabo fiican ay qaadeen. waxaa la soo qabtay oo lagu guuleystay dokumentiyadii been abuurka ahaa iyo waxaa la qabtay argagixisada dad u adeegayay oo sameeyay warqado dadka lagu qalqalgelinayo. hay-adaha ammaanka dawladda ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dilal qorsheysan oo ka dhacay maalmihii ugu dambeysay magaalada Muqdisho kadib kulan ay wada qaateen saraakiisha ciidanka booliska iyo wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya. taliye ku xigeenka ciidanka booliska ee dawladda Soomaaliya ayaa madashan ka sheegay mas'uuliyadda ciidanka booliska ka saaran sugidda ammaanka caasimadda Soomaaliya. kuwa hooyo Soomaaliyeed iyo wiil dhalinyarada Soomaaliyeed wax soo bartay si maalayacni u dilaa ceeb iyo cadaab Ilaahay tiisa waxaan ahayn oo ka faa'iidayaan malaha. marka waxaan leeyahay yaa loo niyad jabin dadka Soomaaliyeed midnimo iyo iskaashi iyo ciidamada iyaga wada shaqeeya loo gudbi kara arrinkaas. dadkan waxaan ka codsanaynaa arrintaas inay maaragtay niyadda ay iska jabinin annagana wixii qaladaadka ahaa oo dhacay sida aad hadda ka arkaysay kooxda Heegan waa tallaabo laga qaaday wixii shalay meesha ka dhacay. ma qari doono qof mas'uuliyad uu leeyahay inuu dayaco inay ku dhammaato baarista waa socotaa wixii soo korna waa soo sheegi doonaa ma socon doonto insha Allah haddii Ilaahay yiraaho. haddii qalad uu dhaco bini aadan la leeyahay qalad waa dhaca mas'uuliyad darrada timaada laakiin waa inay qof yeelato. wixii shalay meesha ka dhacay mas'uuliyaddeedii baaritaankana waa socdaa ciidankii meesha shaqada ka lahayna waa xiran yihiin mana looga harayo intaas haddii Ilaahay yiraaho. qof kasta oo naga mid ah oo mas'uuliyad la saaro dayacane ciqaab mutaysan doona sida nidaamka yahay dadkan u shaqeynaa waana shaqeyn doonaa haddii Ilaahay yiraaho. wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Abuukar Islow oo halkan kulan kula qaatay saraakiisha ciidanka booliska ee dawladda Soomaaliya ayaa ku baaqay in la soo qabto dadkii ka dambeeyay falkii dilka ahaa ee shalay ka dhacay degmada Xamarweyne halkaas oo lagu dilay 2 qofood oo mid ka mid ah ahayd haweeney. wasiirka waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed hadda aysan ku qanceenin in saraakiisha booliisku ay sheegaan in wax laga qaban doono falalka amni darre ee dalka ka dhaca. waxa uu sheegay in isaga xilkiisa uu ku weyn doono haddii ay saraakiisha booliisku ay warcad ka soo saareen isla markaana gacantaysan ku soo dhigin dadkii ka dambeeyay falkii shalay ka dhacay degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. magaaladu waa xirnay waxaan ogsoonahay inuu gaari dhaafi karin oo u bixi karin jidcadyaashu waa xirnay dadku waxaa la galshay ciriiri haddana suuqa Xamarweyne in dhacdo ay ka dhacdo aan raahlo way baxsadeen taas wax la yeeli karo maaha mana dhici doonto haddaan keeni weyno dadka haddaan sheegi weyno dad badan xabsi u galay dad badan xilkooda ku weydiino haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala haddii kale Soomahan ana xilkii ku weynay ogaada haddaan inta sameeyo ana xilkii ku weyn aniga uma joogo meeshan umana imaanin shacabkana xilkan uma qaadin in aan iska soo fadhiisto aan baawar bulguuf ku socda gurigeyga si dhex joogo uma joogo meeshan waxaan u joognaa ummadeena oo qidmeeno ummaddu waxaan u qidmeen karnaa waxay rabaan in naga helaan haddii naga heli way qof meeshan si joogay male taas waa ballan taliyayaal waxaan codsanaa berina shaqeysaan saadama shaqeysaan hadda halkaas ugu nimaan dadkana u sheegno waxaan hayno. Aways Maxamuud Jilco telefishinka RTN Muqdisho.